بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal mar hore waxaan soo jeediyey mashruuca 18 milyan geed oo hadafkeedu yahay in aan gobol walba ku beernaa 1 milyan oo geed oo Soomaaliya ka tirsan sida aad la socotaan waxaa soo laabtay macluul baahi abaar iyo gaajo iyo dhirtii oo ma aragtay la gooyay oo ma aragtay eber laga dhigay marka sida ugu fudud oo aanu ku beeri karno 18 milyan oo geed waxa waaye inaanu sameeyno wacyigelintii ugu horeysay ee aan sameynayo waxa waaye geedka timirta anigoo soo bandhigayo sida loo beero geedka timirta sida aad u jeedaan geedkan waxa waaye timir aan beeray 2 sano ka hor aniga iyo wiilkayga 4 xabay ahaayeen 2 xabo ka badbaaday waad u jeedaan geedka timirta caafimaad uu qabaa London lagu beeray Soomaaliya hadii lagu beeri lahaa waxay gaari lahayd meel aad u sareyso oo aad u sii qurux badan sababtoo ah Soomaaliya cimiladeeda timirta aad iyo aad bay ugu wanaagsan tahay hadaba sidee timirta loo beeraa timirta siyaabo kala gedisan loo beeraa laakiin waxaan soo jeedinayaa qaabka ugu sahlan oo ah in lafta laga beero markii lafta laga beero timirta macnaheedu ma aha inaad helaysid timir sababtoo geedka timirta wuxuu leeyahay lab iyo dhidig marka kii kugu soo hagaagu noqon karaa haddana hadaa heshid geed timir dhalayo macnaheedu ma aha inaad helaysid geed timirtiisa aad u macdahay laakiin waxaad helaysaa geed timir leh waxa laga yaabaa geed 1 kiilo sanadkii dhalayo mid 2 kiilo mid 10 kiilo mid 100 kiilo mid 300 kiilo waa nasiibka waxa waaye geedka laga beero lafta laakiin hadii ma aragtay goysmo lagu beero geed timir laantiisa hadii la soo qaado waxaad helaysaa geedka laanta laga soo gooyay waana mid kale hadaba qaabka ugu easy-san oo ah in laga beero timirta laf kow laftiya soo qaadanaysaa marka lafta soo qaadatid biyo aad dhex dhigaysaa sida aragtid u dhex dhigo ama bakeeri inta soo qaadatid biyo ka buuxi lafta dhex dhig aniga hadeer caagaan dhex geliyay waxa ku haynaysaa ilaa iyo isbuuc ilaa iyo 10 cisho biyaha haday wasaq noqdaan ka bedel 3 maalmood 4 maalmood hadba sida waqti u heshid waxay ka dhigaysaa lafta jilaac oo dhaqso ayna ku soo bixi karaan markaas timirta laakiin hadaa carada gelisid waxa laga yaabaa inay waqti dheer qaadato sababta loo sameeyo sidan waxa waa in la dedejiyaa inay lafta dhaqso xidid ku sameysaa marka 10 cisho ku haysid ka bacdi waxaad soo qaadanaysaa hadba waxaad haysatid container lafihii oo timirta biyaha ku dhex jiray aad soo qaadanaysaa 10 cisho amal ku jiray waxaad hoos dhigaysaa mandiil ama xaashi ama tissue hadaadan haysanin tissue ama mandiil waxaad sameyn kartaa maro aad soo qaadi kartaa macwiis jeexmato kale ama shukumaan ama wax soo qaadi kartaa aad bedelkii tissue-ga ku bedeli kartaa marka saas aad sameysid Allahul musta'an waxaad soo qaadanaysaa biyo oo mar labaad ma ku shubeysid waa ku bilbilaysaa oo waxa la rabaa in ay si tartiib ma aragtay ugu bilbishid saan oo kale waxa laga rabaa dhado ama xogaa yar dam ama qoyaan ka bacdi waad isku laabaysaa ta u jeedid haday biyo u baahato wax yar oo ku daraysaa ka bacdi waxaad sameynaysaa xakameyn oo waxaad ka celinaysaa biyahaas inay biyaha meesha aan ku shubnay aan ku bilbilnay inay qaleel noqdaan hadaa afka u feedid biyihii qaleel bay noqonayaan saas darteeda baa xakameyn aad ku sameynaysaa caagiya xakameynaysaa oo kugu jiray qabaas marka waa xiraysaa marka waxa laga yaabaa inaadan haysanin
containerkan oo Soomaaliya la joogo bacdan lama weynayo ama bac kale. hadafka waxa waaye xakameyn biyahaas aan meesha ku bilbilnay inaysan qaleel noqonin. markaad gelisid bacdan afkaad u xiraysaa, hadda inta kugu jirtayna afkaad u xirtay. markii sidaas la sameeyo afka loo xiro waxaad sugaysaa hal bil iyo bar 2 bil hadba siday ku soo baxdo. mar walbana waad furaysaa, waa fiirinaysaa biyaha qaleel ma noqdeen. hadday qaleel noqdeen waad ku shubeysaa, waa fiirinaysaa haddii uu ka dhasho fungus waa dhaqaysaa, waa ku celinaysaa mar labaad. hal bil iyo bar xidid ka soo baxayo. xidid markuu ka soo baxo ka bacdi caleen uu sameeyni iyo caleen. markii xididkii caleenta ilaa intaas camal ay gaaraan waad soo qaadaysaa laantii yariista ahayd, waxaad ku beeraysaa carro yariis ah sida kan oo kale camal ah. dhulka weli ma gelinaysid, carro yariis ah oo lagu barbaariyo ilaa 1 sano 2 sano. hadda waa kana geedkan 2 sano uu jiraa. kanna sidoo kale isku waqtiyaa la beeray. kan caleen weyn uu leeyahay saa u jeedaan, kanna caleentiisa waa dhuuban tahay. marka nasiib waaye, waxa ku soo bixi karo ay nooc. marka sidaas waaye sida ugu sahlan ee timirta loo beero. walaalayaasha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaan rajaynayaa in aad barateen sida loo beero timirta oo aadna isku daydaan, khaasatan dadka Soomaaliya joogo. sida aan la soconno timirta waxaa ku badbaaday wadamo badan, waxaana ka mid ahaa dalka Ciraaq. cunaqabatayntii markii lagu sameeyay waxay ku noolaadeen, waxay ahayd timir. Soomaaliya cimiladeedana timirta aad iyo aad ay ugu bixi karaan. waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo afarley yariis oo aan alifay. waxaan dhahayaa tawakal samee, taladeyda raac, timir beer. 10 sano gudaheed tugsashaa ka baxaysaa idinka Ilaahay. 10 sano ka bacdi tugsashaa ka baxaysaa idinka Ilaahay. taakuleenta adduunkana adiga ugu deeqayo timir. taakuleenta adduunkana timir ugu deeqaysaa. tolkaygii Soomaaliyeed, tacab timir taag ma u baahno, tamar badanna kaama galayso. waa wax sahlan oo easy ah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.